magaceedu waa Asmad Daahir waxay ku nooshahay magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaan la soo wadaagtay qisadan xanuunka badan daawade waxaan rajeynayaa haddii aad qisadan dhameysato ama muuqaalkan aad dhameysato inaad wax badan oo ka qarsoon aad fahmi doonto haddaba waxaan rajeynayaa walaashan wax naga soo codsatay in aan u soo gudbino wixii talo iyo tusaale ah waxaan rajeynayaa inaad la talin doonto walaashan dhiban qisadan xanuunka badan nala soo wadaagtay adigoo ugu soo taladii tusaale la soo wadaagaya oo qaybta hoose commentiga noogu soo diraya haddaba si aan ku dhaafin qisadan iyo qisooyin kale xiiso badan aan soo wadno waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channelka isla markaana aad gambalelka furato. Assalaamu calaykum magacaygu waa Asmad Daahir waxaan joogaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer qisadan doonayay la wadaago إذا كانت تلاقي تصالح واحد إنسان يعني زلا قارن دونا ويل بانس براناي لغزي كوني طبعا كي كاس وايف باناين واحد هذا ويل كي برشة كتيب وان وضع شيء كسرناي مركل مدود سعني سنة دا لسوق عري أنا حد هذا خلاف فرح زيمي تبتني رابع نقدر شقي أنا مؤمن مركاي سبنا مؤمن خلاف بان ku kala tagnay waxaan qabtay dawladda deegaanka Itoobiya halkaas oo sanad ku maqnaa ka bacdi 2015 baan imaaday markaan Hargeysa ayaan heshiinay ka bacdi markaan heshiinay waxa dhacday Rabadaantii 2015 ayaan isku dhacnay haddana khilaaf dhexdeeda yimi خلاف كان سوتي سجالها كبعدي وان كجات كيستي وان كأنصي لو بلود بان كلام مقنعين واحد عزي أنا كي لمبرة زي وحي أذكر كيسا موبل كي قاضي يا الحافة تنا لمبرة زي وين بتسك لمبرة زي وابلا قاضي ورجل لمبرة كلام قاطي أنا كي واحد عون دونين ولمبرة سور راديو ولمبرة كي ويشورة راديو كبعدي وحني ماذي برعو مركني ماذي أيام وحنا وهذا حقه إن كانوا مالي ذلك كان نقدر وركيس تجي مركز أيام دمعي ليش الحالة عافمات إن كنت ويدي تبدأ أنا دايما كورس لا ودي لودي وحبتي halka waxba kama aha maanta ayaa waxa dhacday in markii dhalinyaradii iyo leega shikay xaalad soo noqday aynaad kiisan waayay waa saaxiibatayba dabadna igu tiray ku dhiirigelinayaan garaacno oo la hadalno ka bacdi waan ka diiday waxaan kula la hadli maayo way marka waxaan ka cabsi qabay inuu ilmaago ama aflagaadiyo waayo qof muddo hore ugu dambeysay calaadna ku wada tagnayd كبعد ويكرعدي إن أنتي وحكوات كستين كرعدي ويكرعدي وكقبتي مركو ساوغ قبتي بكل ما أسمع ما يبي كتري ومونا مركاسو كوري يورن في عند خير وأسمع ما معرفتي ما قصيتري إن هاو بيلي شوك تواتن ويقريبتي كبعدين كون ولا هذا اللي وحي شيغين وخلطي قلي ودوني إنه خلاص كيسي صحو ونا إيمانايا halkan joogo dabadeed inaan kiiba waxay sheegeen barito leh soo markaa leesu jooga inuu caawa iimaanaya habeen dambe markaa la leeyahay habeenimo waxay sheegeen habeen dambe iimaanaya habeenimidkii uu yimaaday habeenimidkii markii yimaaday isagii asxaabtiisii واسلا قادناي خلافكي iyo khaladkiina soo dhaxgalayna iskiilowno oo dadna halka xirkay ka sii wadno waa okay waan isla qaadanay iskuulka markaa waxaan galeynaa foonto markaa foonto wala galeeyahay foomankii u dhamaaday dabadeedna foomankii baan sidii ku dhamaysanay alxamdulillah sidii markaan ku dhamaysanay ayaa foontirii loo soo gudbay foontirii markii loo soo gudbay inankii xaalada ayaa ku timi inuu ka yimaado magaaladii oo uu bedesho magaaladii Hargeysa ahayd ka bacdi uu tagay wana uu sheegay ana wax la qaatay inaan
maadaama uu Hargeysa tagayo aniguna aan Hargeysa iskuulka u bedesho aan xaafadayda yiraahdo bedela maraba halkan saas darteeda la bedelay Hargeysa ay gudaha nasiib xumo iskuul maana noqon laba iskuul oo aad u kala fog baan kala galnay caqabadaas markaa ay qabsatay oo reerkayga iskuul kala geeyeen markaan ugu doonaynay dabadeed waxa dhacday in sidaan ku wada socono ayaa waxa loo soo gudbay sanadkii dambe foorka la galay dabadeed halkan aan imaaday buraan soo noqday imtixaankii foorka halkan aan ka galay shaqaan ka helay halkii waan ka shaqayn jiray isagu markaa waxbarashadii uu ka haray oo halkii foontrigii uu ka haray teramiyadii dhexe kabacdi waan iska waraynay haddana callboon ku hadli jirnay WhatsApp-kan ku hadli jirnay inankii wuxuu sameeyay inuu xiriir kale samaysto oo dee uu show dad kaleba intuu wado aanan ogeyn hasaatee aan daacad weli u hayo dee qofkii keliya dee anigu markaa qofkaygiiyo quriyaatay qofka adduunka laga keenay oo keliya inuu yahay baaban haystaaba xaalad kasta oo sigal soo gudboonaatay xaalad kasta oo uu galowgan ogaawan ka warqabay family waan isku xirmanay dadkii oo dhan aad baan isku wanaagsanaaday waxa dhacday in oo dabadeedna isfahan dhexdeedii imaado sanadkii 2019 taasoo sababtay inaan imika ku kala tagnay xaalad guur baa timi meeshii inuu yiraahdo inankii guur baan doonayaa anina caqabad bay haysatay xagga faamiga waan u sheegay waxaan ku warsaasay jirtaa caqabadaas ay haysataa maadaama inta soo soconay inankii wuxuu sameeyay inuu xiriir kale samaysto oo dee uu show dad kaleba intuu wado aanan ogeyn hasaatee aan daacad weli u hayo dee qofkii keliya dee anigu markaa qofkaygiiyo quriyaatay qofka adduunka laga keenay oo keliya inuu yahay baaban haystaaba xaalad kasta oo sigal soo gudboonaatay xaalad kasta oo uu galowgan ogaawan ka warqabay family waan isku xirmanay dadkii oo dhan aad baan isku wanaagsanaaday waxa dhacday in oo dabadeedna isfahan dhexdeedii imaado sanadkii 2019 taasoo sababtay inaan imika ku kala tagnay xaalad guur baa timi meeshii inuu yiraahdo inankii guur baan doonayaa anina caqabad bay haysatay xagga faamiga waan u sheegay waxaan ku warsaasay jirtaa caqabadaas ay haysataa maadaama inta soo soconay inta soo hadlay inta soo dhan soo sameeyay aniguna aan weli qofta kale aan adigu arag xan iyo bareertoona de wax weeyaan inaad inta yar tan ka baxayo aad sugto ama daadid u qaadato adigu inankii waayahay yiri dhowr jeer waayahay yiri markii dambe noqotay balamo inaan galno balamahaas oo xag aniga igu qasbay inaan balan u qaabto hadii kale uu yoranayo ku kala tagnaan inaan kala tagno ma doonay ruuxantii waxaan doonaynaa wada socono xiriirkayga kamla dhalino asaatay isagoo wuxuu igu qasbay inaan laba taran mid doorto oo niraado balan u qabto dana balantii way gaadhay bishii 12aad sanadka nadaafay dabadeedna wuxuu balankii way gaadhay maxaad leedahay waan u sheegay waxaan ku yiri arrinkii bil baa ka hadhay adoo bisha labaad baa ka hadhay labada bilood markaa bishii 12aad weeyaan bishaas uu suuq baan ku yiri bisha wixii ka dambeeya ama waan soo sixi ama reer baan noqon doona ma iyagu soo istaageenkii anigu ma yeelayo maadaama marka hore balan khalad diiday imkana been badi sheegaysa waa kaas waan ogaano xaaladda marka aan sigan waayo ama
wax kale ku yimaadaan xaaladan geli jiray si kasta oo haataba dee qofiga warayo asoma wuu diiday. waxaan ku yiri anigu waxaan siri qof kale ku doonay lagama celiyo run ahaantiina ma ka moodeen dhab waxaan mooday inuu aniga igu kidkidaayo oo dee baaban haystaaba xaalad kasta oo siga soo gudboonaata iyo xaalad kasta oo wada hadalnay waxaan ku rumeynaa isku soo noqonaa doonaysaa laba koobaad aan kala labada bilood bishaas markaa bishii koobaad wixii ka dambeeya ama wayna soo sixi ama dee reer bay noqon doonaa ma iyagu soo istaageen kii anigu ma yeelayo maadaama marka hore balan khalata diiday imikana bayn badii sheegaysaa waa kaas waan ogaano xaaladda markaan sigaan waayo ama wax kale ku yimaadaan xaaladan geli jiray si kasta oo haataba dee qofiga warayo asoma wuu diiday. waxaan ku yiri anigu waxaan siri qof kale ku doonay lagama celiyo run ahaantiina ma ka moodeen dhab waxaan mooday inuu aniga igu kidkidaayo oo dee igu dedejinayo uu soo needee marka yeesho markaa waxaan islahaa anigu waxaan ogeynaa ka timaado ku jira markaasuu wuxuu sheegay oo dee igu dedejinayo isagu ku xaalad kalaan galay waanu sheegan u qabto deedna balantii bay gaadhay bishii 12aad sanadka na dhaafay dabadeedna wuxuu balankii way gaadhay maxaad leedahay waanu sheegay waxaan ku yiri arrinkii bil baa ka hadhay adoo bisha 2aad baa ka hadhay labada bilood markaa bishii 12aad weeyaan bishaasuna isug baan ku yiri bisha wixii ka dambeeya ama wayna soo sixi ama dee reer bay noqon doonaa ma iyagu soo istaageen kii anigu ma yeelayo maadaama marka hore balan khalata diiday imikana bayn badii sheegaysaa waa kaas waan ogaano xaaladda markaan sigaan waayo ama wax kale ku yimaadaan xaaladan geli jiray si kasta oo haataba dee qofiga warayo asoma wuu diiday. waxaan ku yiri anigu waxaan siri qof kale ku doonay lagama celiyo run ahaantiina ma ka moodeen dhab waxaan mooday inuu aniga igu kidkidaayo oo dee igu dedejinayo uu soo dhanaya dee bal ha yeesho markaa waxaan islahaa saa ku tegi maayo dee waayo anigu waxaan ogeynaa ka tegin mugte haddii dee wax kasta dhacaan laakiin isagu wuu ku dhaqaaqay wuu tegay markaanu bishii kala aamusnayn bishii koobaad aan kala aamusnayn ayuu ii damcay uu ila soo hadlay galbaa ka mid ah oo jaamacadda ku jira markaasuu wuxuu ii sheegay wii salaamay waan ku celiyey fiidkii baan wada hadalnay waxaan ku rumeynaa isku soo noqonaa doonaysaa ma iyagu igu yiri aroos baan ahay inaan baan heshiinay markaa sidaa ula soco waan naxay waana fariiray waan la hadlay waani xaalad kalaan galay waanu sheegay waxaan ku yiri maxaadeen ku kalifay baan ku yiri anigu soo nin ku jooga maaha imika yaatana wax kasta baa dhacaan aniga diyaar ku ah maadaama sida aad u dedejinayso wax kasta aad faraha ka soo qaaday ana imika arrinka ugu kalo maya wuu yiri waxa weeyaan markii hore diiday imikana hawl kalaan ku jira inuu soo duceeyo markii adoo waan la hadlay wax walba waan ku yiri waan la hadlay maya wuu soo istaagay arrin baan dhamaystay nasiibkaaga eego adoo inta ayaan xaaladii anigoo ku jira oo maxaan ku leeyahay joogay baa isku bedelay oo talo meelan ka gaariyo meelan ka diiday midna aqoonin si kasta oo la hadlay alla asxaabna ayuu diray diid adoo inaan ka telefoonada hablii wii karnay uu ka qaban waayey anigana inoo soo duceeyo bulbulada ad
dadka markaan kala hadlana walaaltinimada ayna ka dhaxayso. marka aniga hadee markuu walaaltinimada ay ka dhaxayso wax dee mar ayaa dee maaha moogta ma dee aan u dulqaadan karo. aad bay dhibi jirtay inaan meelaha fadhikooyo oon qadka kolba eego hadalkaygu yidhi wuxuu qaadan waayay u noqotay. markaasaa waxaa sameeyey waxaan isiri bal inuu kaga dhabeeyo in kala eeg. waaba bishii 2 markaa waan wada hadlaynaa. markaas waxaan qabtay Hargeysa isagoo Hargeysa joogay. waxaa la sheegay habeen markaan Hargeysa joogay waxaa la sheegay inuu aroos yahay oo shalay mehersaday. markaasaan rumaysan waayey. markaan rumaysan waayey ayaan inaan asxaab nahay isagana ay walaalayihiin ayaan u tagay. waan u weydiiyey wuxuu tiri arrinkaasi wuu jiraa hadaana aan ogaadayba. xaalad xun baan runtii galay. hooyadii bay la socotay Hargeysaan dhakhtar baan hooyo keenay. markaa hooyadii baa aragtay jawigayga iyo xaaladda siday tahay. runaantii dee xaalad aan isleeyahay hadda way kuu hadhay inta nooshayna jimidii xaaladaas oo kale ayaa kusoo mari doonta. allana ima soo mariyo. tanna midii qornaad bay ahayd. Hargeysa ayaan ku dhaxasboobay meelala meelan jooga iyo meelan maraysa ma ogeyn. oohin iyo maraatilaaca maxaan ahayn maan haynin. kabacdi waxaa dhacday in hooyadii ogaatay waxba cuni waayey. hooyadii meel kastay geysay. ilmada indhahaygaas kantaroolka wuu qabsan weyday. gashan kar waayey. maxaan ku dahayay meel bay geysaa meel kale geysaa wax kastay xaaraan bay ka tahay. maxaa ku helay way dareemaysaa moogtay. hurdo waan kala tagnay. markaasaa yaro maquuro habeenkii xilliyada dambe ama waa beriga ama meelahaas wixii ayaa intaas saacadaas ama barkaas ama daqiiqadaha yar aan ku hadray. markaan ku hadray ay hooyona maqasho. marka horena faamigu way isku kaayay waa xagiisii xagayagaba khilaafkuna inuu jiro. hooyo xaafadeedu way ogeydo. markii aan bishii 12 aan isku khilaafsanayna sheekada isku khilaafsanayn ayaa wax dhacday. markaan seexda habeenkii oo kale baan ku hadal jiray. markaan ku hadlooyaan jiray ma anigoo intaasoo dhan ku sugayay oo intaasoo rixli lahayn baan maanta gabar kale iga dooranaysaad leedahay. gabar kalena roosaya. waxaas waxaan dulqaadan karo maaha moogtay. aniga adee sidii qolba qofka soo joogo baan ugu hadal jiray. dina xaafad way ogeyd. markaas ay goran jireen iska ilow haddii uu sidaa sameeyey oo go-aankiisii u bedelay. markaasaan iska dee nixi jiray. walaahi arrinkaagii fara ka bax buu noqday. saasay hooyadii ku ogaatay markaan Hargeysa joognay. waxay igu tirso wixii bay yaadho. waxay ugu tagay hooyo iska ilow maradu uu nolol kala samaystay oo calafkiisa halkaa u mariyey. iska ilow adiguna naftaada waxba ha ciqaabine iska odhan lahaa iska daa. waayahay yidhi dee waa arrin igu socda marka aniga may ahayn iska ilowdaasi oo dee waxa igu adag beed ma garanaysa. kabacdiina inankii habari Hargeysa ka imi magaaladii imi. horta intaanan iman ayaa waxaa dhacday inaan baan khadka ka helay oona markaa aqoon u lahayn maasi jarka. inankii waa habeenka markaa ma seexan waa soo jeed. markaas maxaa xiligan kusoo jeediyey. dabeedna qof bila control baan ahayo dee cidda ila sheekaysatana aan markaa haysin. dadkii oo dhan xitaa saas baan ka qaaday. qof ma la hadli karo. asxaabteedu ma la hadli karo. cid kale ma la sheegin karo. inankii baan u sheegay waxaan ku risaasay ugu dhacday. inankii baan niyadii ila sheekaystay. wuxuu guri walaal shantaan kaskanaad qofkaas hadduu kaa tegina qof kala helaysa. aadinankii way aqbeeliyey. shaydaankaas ka naaray. subaxaas wixii gogtana ka soo baxay. waxaan imaaday magaaladii.
shaydaanka iska naaray waa tukaday quraanka akhristay alxamdulilah anoo soo fiicnaaday oo joogaba magaaladii maalin ayuu maalintii dambe soo wacay markaa 7 afar bishuu kaga jiray markaasuu ii sheegay inuu calaf dhacay oo gabadhan aanu calafun u geeyay aanu doonaynin hase ahaatee uu rabo inuu la kulmo oo yimaado oo ii sharaxo wixii dhacay iyo sidii u jireen ka diiday markii hore ku yidhi maxaadeen digashaad wadaa maxaad igu doonaysaa maxaad iga soo qaraaxanaysaa aniga soo ma ogid saad ii gashay adoo ilaa habeennimadkii wii soo gargaraaci jiray maraan ka qabtiyo maraanan ka qaban buu ilahan jirtay hase ahaatee markii dambe iska ilaaway caradayga baxday yidhi xamday wixii dhacay way dhaceen laakiin waxaad samaysaa bal nasiibka marka lala eeg maadaama isaguna kula soo hadlayo waayahay waana isla xiriiri jirnay waa isla hadli jirnay gurigiisii markaa waxaa kasoo wareegay 2 bilood markaa bishii 3aad baa lagu jiraa gabadhii baa waxay noqotay wala joogta dabadeed waxaa dhacday in lagu dhaado waan ku imanayaa markuu imaaday waan ku imanayaa weli coronaviruskii shaqadii wixii way ka istaagtay ruuxii sheegay inaanu haysan nooli uu ku soo baxo kabacdi anaa u diray soo bax baan ku yidhi maadaama arrintee aynu isku ognahay aynu kala faqurnay waayahay sidii baan lacagta ugu diray muu imanin markuu iman waayey ayaan ana ilaa habeennimadkii 8 markeed baan xanaaqay waxba imanin baan ku idhaaday waay buu 2 cisho maqnaa 2 cisho markaan ila soo hadlin aanan la hadlin aan si isweydiinaya sababta markii hore intuu isku sameeyey markii dambe haddana ila soo xiriiriyay wax walba oo wanaajinaya wax walba oo noo hagaajinaya wixii dhacayna khalad bay ahaayeen waana ku imanayaa markii dambena xitaa uu igu jaray anigoo isweydiinaya yaaban ayuu message soo diray markaa heesamaana ma u jawaabin wii soo garaacay habeennimadkii wii soo garaacay buu ila hadlay waxaan ku yidhi waan hurda waan kacay waxaan ku yidhi maxaad iga doonaysaa baan ku yidhi soo moogeedadana waxaad samaysay aniga nabadgeliyo hay soo garaaceen waay buu yidhi inaan isla soo hadla okay baan ku yidhi middaa ka soo wareegtay intaas kadib waxaa dhacday inaan anigu haddana massejarka aan kala hadlay maalin markaa ilaa 5 cisho ka soo wareegay maalmahaas ilaa 4 cisho massejarka aan kala hadlay waxaan ku yidhi meel kale markaa anigu qoraal umaan dirin cod aan duubayay oona markaa isaga ku wadin oo madhan ayaan tijaabinayay baan ayaa show igaga dhacay sheerteen sayrbuu igaga dhacay deedna waa bandhig gareeyay isla barqsigii bas ma lahayn buu kale markii ilaahay show waa buu kalayba markaasuu isu jawaabay subaxnimadii markaas ilaa galabnimadkii uu isu jawaabay markaasuu soodigii maaha isku wanaas nabadgelina maxaas dhacay deenishtiina dabadeed halkii bay doodayda ka bilaamatay halkii markay ka bilaamatay wuxuu sheegay inaanu isu socon sidaasna aan isku dayno weliba aflagaadii cayna uu igu daray ana waan xanaaqay waxaan ku yidhi wadhaadii baad dhiibatay intaa in ka badiyayna kala gaadhin in istayno dabadeedna wuxuu bilaabay inuu sheeko ku digasho iyo aflagaado iyo cay meeshaan ulin inuu igu sameeyo soo haayo wada sabkana uu sawirra iga soo diro markaas gabadhiisu leeday dabadeedna waan xanaaqay gabadhiisii iyo isagiiba waan caayay markaan maagay aan ku yidhi adeer adiga iyadu wabada isla galatay maxaa aniga idi weydiinaysaa ayuu wuxuu sameeyey gabadhiisu markaa way ka maqnayd oo xag reerkoodii ku maqnayd
waqti markaa xaalad caafimaad baa markaa iyadu ka shaqaa reerkooda ka haystay markaas ayuu damcay gabadh naag kale oo markaan uu moodayay gabadhiisii baa codadii soo duubtay soo caayday show gabadhiisii waa maahay gabadhii waa gabadh kale dabeedna naagtii baan iscaynay ayuu isaguna maqribkii meelaha khadka soo galay waabuu soo caayay baa codadii soo caayay iyo qoraal deedna waan block gareeyay labaan la hadlayna waan block gareeyay Facebook iyo WhatsApp waan block gareeyay koolka caadiga ah baan ka buuga soo garaacay waan block gareeyay message wuu soo diray caadiya wuu soo caayay uma jawaabin waxaan garaacay inantii markii hore walaashii ahayd sheekada baa aan gurigood ku ogaaday waxaan ku saasaa jirtay maxay gabadhiina ii keenay baan ku uri saasuu ninkeenay sameeyey waxay ku tiri gabadhii maba joogto way ku tiri iyo gabadhi sidii bay ku maqan tahay neemalaa gabadh kale ay kuugu dhiibay sax waan iska aamusay markaa waxaan damcay anigu inaan aad baan u cadhooday waxaan siri aydaadii afdagaadadaas aan ayday weliba aanan dee inaan Soomaaliya lagu hayn karin xitaa qof colaadeed ka dhaxaysa lagu hayn karin wada qof dee marka hore isku wanaagsaneedeen Soomaa waxaan damcay inaan tigay Hargeysa jooga oo weliba maxaan ku daayay dhalinyarada Hargeysa ugu fudud ee Hargeysa maxaan ku daayay qaaqayga siisay ayaan siri ku balami waan u sheegay abtigii baan garaacay waan u sheegay waxaan ku dhabtay ka noocaasa soo caayay markaa abtigii waxa weeyaan iiga jar dee weliba aflagaadii caayna wuu igu daray ana waan xanaaqay waxaan ku yidhi wadhaadii baad dhiibatay intaa inka badiyayna kala gaadhin insteeno dabeedna wuxuu bilaabay inuu sheeko ku digasho iyo aflagaado iyo cay meeshaan uulin inuu igu sameeyo soo haayo waxaan raqaladka kala fadaxad wax leeyahay oo ku day hal qof og tahay kun qof lama gaarsiin moogtay dadkuna khaladka tayaadunba ku saarayaan iskiida tanna abtiga waxaan u sheegay in iska cafiyo aan wax dagaal diyaar iska daayo markaas waxaan hayay lambarka aabihii baan garaacay waxaan ku raab adeero in kaagisa igu sameeyay darab baan ka hayaa iga qabso baan ku urday aabihii si fiican buu ila hadlay hayaad urbigu raad badan maadsan tahay أنا قاعد مرة هذا خبرني دمنا كوبون مايو أنكو رسالة كبدي بيسوي سوعي يقول كبدي سمي شوكتو بيقول سيدي كذا ما كنت هذا يره أنا لكن بعيد بكون كهاليني هاي بانكوري سيدينا إلى مصحرين وما أنا أركين أنا محرين مركا واحد دوني نقصدنا عسى qofka 10 sano iyo dheeraad ka sanadkaas 12 sano ku yahay galumay hasaatay wanaag iyo muxbiye ka kaalan hayay xaalad kastoona kula garab taagnaa wax kasta oo baahdo iyo wax kasta oo soo dirsa hatana taa igu sameeyay intuu waliba markii hore i xumeeyay oo anigoo daacada oo ilaahay waa intuu gabadh raacay markii dambe hadaba aniga tadawirjiminta igu samaysay waxay ahayd markii dambe intuu dhulka isku qaydhigay uu yiri xaalad kasta oo nagaajinayna waxa weeyaan wixina soo dhaxgalay aynu dhamayno markii dambena sameeyay inuu sidan iyo shaqamada inagula kacay isaniiso bahdilay ayaa igu noqotay wax aad iyo aad أنا بقاعد وايو دوانا حالة أدق أو تقول قفك حالة كل عدو بدرين كلا قفك لنا
maxaan ku dhaayay wallaahi way ku adkaanaysaa inuu dareemo markaas intii hore heshiiska ahayn halkan magaalada wada joognay aad baan iskaga warhaynay oo isku xidhnaan jirnay bal alwaka xaaladaasaan galay saasaan noqday markaa bal idinkuna raygiina iska soo dhiiban doontaan insha allah